wuxuu kaloo wadaadku su'aal iiga dhigay oo yiri see ula tacaamulaya aayadaha jamaca iyo ifraadka midda kale aayadaha kan ee ku yimid siiqatul jamciga oo jamaca ku yimid iyo kuwa mufradka ku yimid wadaadku ha noo sheego sida uu la dhaqmayo ma mid gaar u qaadanaya ma labadaba waxa weey waa ta'wiilinaya haduu ta'wiilinayo qariinada uu ku ta'wiiliyaha noo sheego aniga dhibigu ma hayso maxaa yeelay asaga dhib ku haysa maxaa yeelay waxbuu raadinaya asaga wax laba la yiraahdo raadinaya wuxuu rabaa ilaahay inuu laba cayn laba indhood u sugo wuxuu rabaa ilaahay laba gacmood inuu u sugo wuxuu rabaa ilaahay waji inuu u sugo marka maanta Soomaaliya adigoo dhex jooga aad tiraahdo ilaahay laba indhood buu leeyahay laba gacmood buu leeyahay waji buu leeyahay maxaa masawiranaya qofka Soomaaliga maanta muxuu masawiranaya asaga dhibaatada haysa waxay tahay wuxuu rabaa ilaah laba gacmood iyo laba indhood iyo waji inuu soo saaro markaas waxa dhibaysa aayadan caynta mufradka sheegaysa waxa dhibaysa aayadan jamaca sheegayso acyunta aniga ma idhibhayaan laana marka hore ana ilaahay laba indhood iyo laba gacmood ana la aadeenba aniga waxaan leeyahay asaga cayn isku nisbeeyay waa u deynaya ilaahay asaga acyun isku nisbeeyay waa u deynaya asaga isku tilmaamay meel kale la aadimaayo anu saasa oo la tacaamulaya laakiin wuxuu moodaa sida asaga u dhibayso inay ii dhibayso asaga wuxuu raadinayana raadinay tajsiim buu raadinaya ilaahay inuu bani aadamka u akaysiyo raadinaya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى مهبة النصائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد قيبتان إن شاء الله تعالى وحان ربائنا أقاهد الله وذاتك إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسا كدوديي وإلهي أصغي عينان هدنا أصغو سعد ولها ولبا إندود waxa laba indhood Soomaalida u taqaan markii afka lagu bayaaninay aad garan kartaan waa dareemaysan niqaashkeenu meeshii uu marayay adilla ayuu u keenay hadda ka hor oo ku sugahayo asagu sida uu leeyahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynaan in loo nisbeeyo ah waxaad ogeydin adilladii aan ka doodnay oo waliba uu yiri ijmaac iyo ahadiith baan dilishanaya aayadan dilishanaya moona oran حديثتي u dalishaday waan kala qaadnay xadiis wuxuu noqday xadiis daciif ah anaga sida aan aqoontaydu intii ay gaarsiisneed iyo aragtidii aan ku soo arkay culimada islaamka xadiisna wuxuu ka dalishaday xagga mafhuumul mukhalafada waan ka hadalnay ijmaaci uu dalishadana waan ka hadalnay laba qaybood baan uga hadalnay qaybta koobaad meesha aan isku hayno ijmaac looma dalishan karaan iraano haddaan qadarno aan iraahno bal dooda suu u sii wado waa loo daliishan karaa aan iraahno maba dhahaynee low laakiin waxaan iri yaa soo naqliyay ijmaac arintaas waxaa laga sugayay wadaadka in uu xadiidkii anagu aan tilmaamay inuu daciif yahay inuu xadiiskaas jawaab sax ka bixiyo ima i'tiraaf bidacfi wa ima inuu wax uga jawaabo keeno waxa laga sugayay ijmaaci anu waxaan cadeeyay oo imaam Bayhaqi ka soo guriyay rahimahullahu ta'ala inuu yiri sifaadkan oo samciga la yiraahdo aliyad alayn alwajhi ijmaac looma daliishan karo khabaru saadiq nabiga alayhi salatu wasalaam inay on ka soo arooreen ama quraanka ku sugnaadan mooyee si kale wax kale loo daliishan kara ma jiraan waliba imaam Bayhaqi uu kala qaaday aqeedada qaab ijmaac loo daliishan karo iyo qaar aan loo daliishan karin buu ka dhig kuwi aan loo daliishan karin way kuwaan isku haynaa wadaadka ilal aana wuxuu ka daba wareegayaa aqeedada ijmaac baa loo daliishan karaa aqeedada ijmaac baa loo daliishan karaa ana waxaan leeyahay war qaybta aan isku hayno ijmaac looma daliishan karo hatta al'aana jawaab kama bixin xadiidkii
mafhuum المخالفة ودليشني وكهذا مفهوم المخالفة استدلال كذا فروع ذا اللي دليشة مختلفة وكهذا وعضهاي جوابتي أنك بحنا بطالة برا بالشدة ولي كجرت قفل بانا وكفير سنكرة ابن الجوزي نوح الشيء دتك مفهوم المخالفة ذا كل جي إني مجسمة يهين سي إلهي سبحانه وتعالى عينين سيء سوغان marka wadaadku hadda wuxuu soo duubay hadana fariin kale oo uu yiri waxaan kaga jawaabayaa ishkaalkii iyo bushigii anagu adiladii uu keensaday aan ku soo arooriyay waxaan rabaa marka dadka walaalaha ah oo ahlu insaafka ee cadaaladda iyo garsoorka u saaxiibka ah bal kilibkan hadda uu soo duubay dhageysta adiladii uu la yimid anagu ishkaalkii iyo naqdigii aan ku sameeyay ma kaga jawaabay mise qardajeexii hore uu u sameynayay buu wadaa bal dhageyso waxa uu ku yiri kilibka si fiican u dhageyso bilowgiisana dhageyso inuu yiri waxaan meeshan uga jawaabayaa ishkaalkii wadaadkaani uu ku soo arooriyay adiladii ithbaatul aynayn ilaahay in loo sugo aynayn adiladan u keenay ishkaalkeedii inaan uga jawaabno ayaan ugu talagalnay ishkaalkeeda waxa uu horeeyay xadiiska daciifka ayaa u daliishaday oo anagu aan sheegay inuu daciif yahay bal dhageysi inuu xadiiska ka jawaabay in kale kulli min awwalaha ila aakhiraha wa daqiiqada dhageyso kama jawaabin xadiiskaas waa awoodi waayay inuu dacfigiisa qirto waa awoodi waayay inuu sixadiisa sugo ishkaalkii aan ku keenay waxa kamid ah anagu adiladiisa ijmaacu meesha aan isku hayno maxallu nizaac waxa leeyahay dadku meesha ay ku doodsan yihiin marka la isku hayo maxallu nizaac ijmaacu daliil uma aha baan iraano waa keenay la yahay ila iyo hadda maxallu nizaac oo sifaadka samciga sida wajhi iyo aliyad iyo alayn ba ijmaacu daliil u yahay waa keenay la yahay anagu waan keenay imaam bayhaqi baan ka soo guuriyay looma daliishan karo waa keenay waxaan ka soo guuriyay imaam ahmed ibn hanbal oo yiri ilaahi laguma tilmaami karo ilaa wuxuu isku tilmaamay mooyee ama rasuulkiisa uu ku tilmaamay mooyee wax kale ilaahi laguma tilmaami karo ilaa iyo hadda waxa uu nafta ka raadinaya waa xadiiskii inna rabbakum laysa bi'a'war oo mafhuum mukhalafadiisa u daliishanay horana aan uga hadalnay haddana aan warkeena uga soo dari doono aad bay marka nasiib darro u tahay in adiladiisa wixii lagu bushiyay inta yiri waa ka jawaabaya haddana uusan ka jawaabin wuxuu ku meereysanayaa luqo iyo tathniyo jamc loo isticmaala iyo jamc tathniyo loo isticmaala iyo waagan luqo isla tagna hal la gaarno hadda nusuus iyo adilla isla joogna eraya luqo isku ma hayno sifaadka ilaahay baan isku hayna sifaadka ilaahay culimadu wixii ay yiraahdeen hal loo daliishadaan u daliishanayna waxa daliilka u keentana waa naqdinay ila ay haddana waad ka jawaabi la'ada waxa ila meeraysan la yiraahdo iyo xagga luqada asaas lagu yiri xagga luqada markaan nusuusta inta ka cajistid aad u soo wareegtid inaad luqada daliishano markaas aan ku tahay luqada isugu tagayna meeshan meel luqa maahan meeshan waa meel culimadii ay meel mowqif cad ka istaageen sifaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadoo la iska ilaalinayo tashwiishka dadka ahlu bid'a ee mujassimada ee mushabbihada ay muslimiinta ku furayaan ayadoo la iska ilaalinayo bay aimadu mowqif cad ka istaageen mowqifka cad oo aad ogtiin inuu ila qaatay oo ah warkii imaam ahmed ilaahi subhanahu wa ta'ala laguma sifeeyo ila wuxuu asagu isku sifeeyay mooyee ama rasuulkiisu ku sifeeyay wala yutajawazu alquran wal hadith ad marxati katir inuu qaatay mowqifka cad buu wadaadku wuxuu cadayn laayay daliil sariixa oo cad ee ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu sheegay asagu oo labada indhooda oo ithbaatul aynayn ah inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala isku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamay buu cadayn lay saayado ah buu aniga hadda wuxuu maqaalkiisan wuxuu yiri asagoo yiri waxaan ka jawaabayaa ishkaalkii buu wuxuu yiri wadaadku ha cadeeyo mowqifkiisa iyo waxa uu ka qabo mawduuca isku hayno wadaadku waxa laga rabaa inuu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan mas'aladatan waxa uu sugay inuu bulshada u sheego macayn buu sugayaa ma acyun buu sugayaa aniga mowqifkaygu mawduuca isku hayno ma qarsoona mowqifkaygu waa mowqifkii imaam ahmed rahimahullahu ta'ala la yusafu allah illa bima wasafa bihi nafsuhu ilaahi anuu ku sifayn mayo wuxuu asoo isku sifeeyay maahan
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز القرآن قرآن كان لما قد بيه أنا موقف واكاس إلهي سبحانه وتعالى عينين ميلو إسقوسي في ما هينو رسول كيسو ميلو كوسي في ما هينو وحي نبي إلهي إسكون نسبي أما نبي يسون نسبي إنا أون نسبي وأنا موقفك وحوي أنا ورك إمام الشافعي رحمه الله تعالى وأجري آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله أنا إله بان رمي وحي الله كيمنا وان رمي إلهي سوء لجهدان الرمي أنا موقفك موضوع أن اسكوها إنه وأنت أئمة الإسلام كشيئين أنا موقفك وحي موقفك سفيان بن عيينة إمامك ويناي جليل كاي وسلف كاها ويري ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية وحي إلهي سبحانه وتعالى اسكت المعامي كتاب كيس لحديثة وحا إلهي اسكت المعامي أقرنت اللي أقرن يا تفسير كلامه أحدنا أما بنانا لغة عربية وكلا إنه أرغو لغة فارسية إنه أرغو أحدنا أما بنانا أنا إلهي سبحانه وتعالى نفتي عين أسرع اسكن نسبي ولتصنع على عيني أسرع أعيننا أسرع اسكن نسبي وأصغى يا إلهي وحو اسكن نسبي لغة كلا أبدل ما سيدا وذات كان أو إنكو شيء معنا فارسي إنجليزي صومالي ماكو فسير سيداس إمامك جليل كاه السلف كاه سفيان بن عيينة أويري ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية عربية بالفارسية مدنا قفنا أو بنانا إنه كفسره سيدي إمام الغزالي أنكسو جورينيني أيام لقوا تصرفا أها وهي موقف كيو موقف ككلا أو إلا تأويلية وباب جارة أو أن بلان قادني hadday gruubkan wadaadkani uu ka turjumaya ay ashaacirada ta'wiilka ku eedeeyaan aan ballan qaadnay ashaaciro ta'wiilka xagee bay ka keeneen ma kitaabka Ilaahay bay ka keeneen sunnada nabiga salafka ma ka sugnaaday ashaacira ta'wiilku ma u deydana mise baahi baa keentay wadadaas kala furan waa wada gaara oo markida laga hadlayo aanan rabin in lagu khaldo maxaan ku leeyahay mawduuca aan ku jirno wuxuu kala wadaadku su'aal iga dhigay oo yiri سأقول تعامل يا آياتها جمع إفرادك. مدة كلا آياتها كان كوي مد صيغة الجمع وجمع كوي مد كوي مفرد كوي مد وذاتكو هنوشة سيدا ورادق مايو ما مد جاره قاضنا يا ما لبدا بوحوي وتأويلنا يا هدو تأويلنا يا قرينا ده وكل تأويليه هنوشة. أنا قد يبقى ما هيسو محيلي أصلا قد يبقى هيسا محيلي وحبور هذينه أصلا واحد لبلا يرادو هذينه wuxuu rabaa ilaahay inuu laba cayn laba indhood u sugo wuxuu rabaa ilaahay laba gacmood inuu u sugo wuxuu rabaa ilaahay waji inuu u sugo markaad maanta Soomaaliya adigoo dhex jooga aad tiraahdo ilaahay laba indhood buu leeyahay laba gacmood buu leeyahay waji buu leeyahay maxaa masawiranaya qofka Soomaaliga maanta muxuu masawiranaya asaga dhibaatada haysa waxay tahay wuxuu rabaa ilaah laba gacmood iyo laba indhood iyo waji inuu soo saaro markaas waxa dhibaysa aayadan caynta mufradka sheegaysa waxa dhibaysa aayadan jamaca sheegayso acyunta aniga ma idhibhayaan laana markuu hore ilaahay laba indhood iyo laba gacmood aanan la aadayn ba aniga waxaan leeyahay asaga cayn isku nisbeeyay waa u deynaya ilaahay asaga acyun isku nisbeeyay waa u deynaya asaga isku tilmaamay meel kale la aadi maayo aanu saasa oo la tacaamulaya laakiin wuxuu moodaa sida asaga u dhibayso inay ii dhibayso asagu wuxuu raadinayn tajsiim buu raadinaya ilaahay inuu bani aadamka u akaysiyo raadinaya wuxuu kaloo ka hadlay maqaalkan uu kaga hadlay wadaadku imaam ad-Dabari wuxuu ka soo guuriyay tafsiirkiisa anigu markaan tajribi ayunina iyo wala tusna ala ayni markaan imaam ad-Dabari ka soo raray wuxuu ka tagay tafsiir imaam ad-Dabari tajribi ayunina al-ayn oo ku fasiray buu ka tagay ibn Jarir rahimahullah ta'ala hadana wuxuu ku sugay kitaabkiisa tafsiirka athaaru salaf kaga soo guuriyay ithbaat al-ayn Allah subhanahu wa ta'ala جنس العين الله إن الله سبحانه وتعالى ابن جرير وحكسه جوريه إلى أفر سلفي كمبدا كو حوي عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركو فسيره وأصنع الفلك بأعيننا ووحينا سورة هود وحكوريه ابن عباس بعين الله إلهي وحوي إيش حكوها وحوي سميت دونت قتاده وحكوريه بعين الله ووحيه إلهي سبحانه وتعالى إيش حكوها يكون وحيونا يسد أصمين لهين وحوي كل سميت بالله سيدا سكلا
markuu fasiraya ibnu jariir walitusnaca calaa cayni wuxuu ka keenay ibnu jurayj raximah allahu tacaala waa nin caalima weyna oo waxa weeye salaf saalixi ka mid a anta bicayni id jacaladka ummuka fi taabuut adiga waxa weeye ishaan kugu hayay markii hooyadaa ay ku dhigtay waxa weeye sanduuqa ku dhex gelisay abi nahik wuxuu ka keenay walitucmala calaa cayni marka afartaa imaam oo salafa ka mid ah oo ibnu jariir raximah allahu tafsiirkiisa uu ku sugay wadaadku waa ka soo tegay weeye ها وان كتك ما أنا العين ديدن دي العين إلهي أساقب اسكو نسبية ما ديدن هدو ليه لها ودادكو ضبري تفسير كيسان وحن كوهيا إمام الضبري رحمه الله عينين بان كوهيا أو ودادكو كسو تجي هدو ليه لها وإقبان لها بلادنكو دقيستا وركا هدا ضبري كسو رراهي دقيستا لفظ العينين كسو رراهي مع ضبري العين بو كسو رراهي oo aamadii saxaabadii iyo rag waaweyn oo salafka u dabari ka soo guurinay maana diidan al-ayn in la soo guuriyo ilaahay loo nisbeeyo quraanka ku cadahay war kale la soo guuriyay mi aniga waxay dhibay quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala wala tusnaha ala ayni oo mufrad ku caday wuxuu wali ka daba wareegay wadaadku waxaan waxba u noqonayn waaska on maxaan ku iraahay tashwiish kale iyo inuu maxaan ku iraahay barnaamijka meeshiisa ka leexiyo raba dhageysta warka uu ka soo raray tabari هل تثنية لقوم أركو عينين لقوم أركو عين أو مفردة تاني إلهي أساق اسكون نسبي وحي إلهي اسكون نسبينا إنا أصغنا أولا وبلنقاد وحو يري أيضا تجري بأعيننا وعادي يري إن لفظ قال لقو وريتي ظاهر كيسو جمعاه تثنية لو وريتي هل أحد أو مفسرين تكمدة أو تجري بأعيننا مفسرين تنكاد تثنية وريتي مكينيو أئمة سلفكم markii waxa weeye aayadahan quraanka ah oo ilaa waxa weeye afar aayadood oo kamida ay ku timid siiqat al-jam'i aayad suuratu hud wasna' al-fulka bi'ayunina wa wahyina aayad suuratu al-mu'minun fa wahayna ilayha an isna' al-fulka bi'ayunina wa wahyina aayad suuratu at-tur wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina aayad suuratu al-qamar ku jirta wa hamalnahu ala dhati al-wahy mudus tajri bi'ayunina afarta aayadood siiqat al-jam'i ku yimaadeen hal aayadna waxay ku timid siiqat al-ifrad suuratu daha wa la tusna'a ala 'ayni markay culimadu marka ay eegeen waxa weeye aayadahaas quraanka ah daahirkeeda waxa weeye waxa looga leexday daliil darteed oo jamaca iyo ifraadka midna lama qaadan see warkaas u dhihi karaa waxaan maadaama sifaat ilaahay inay yihiin oo ogol yahay salafu saalixna ay yiraahdeen sifaadka ilaahay amiruha kama jaa ijraa'uha ala dhaahiriha ba'da tanzihi 'an at-tashbih markii ilaahay tashbiih laga nazo bacdigeed sifaadka ilaahay sababta uu u leeyahay daahirkoodan ka leexinaya maxay sababta uu u leeyahay daahirka wuxuu soo qaatay yusikumullahu fi awlaadikum aayada takhsiis oo galay ee nusuus kale oo ahadiith iyo ay khasiseen buu soo qaatay meeshan cid aimada kamida oo uu takhsiis baa ku jira tajriba ayunina cid aimada tafsiirka kamida oo ku soo raray ma jiro takhsiiska oo furuucda ku jira oo culimadu ay qarireen oo la yaqaano ama mudlaqa la qaydo ama caamka la khasiso iyo maxaan ku orahay halkaas buu la aad tajri bi ayunina wadaadku wuxuu ogolaaday sifa ilaahay inay tahay sifa ilaahayna wuxuu ogolaaday aimada salafku inay yiraahdeen amiruha kama jaa ijraa'uha ala dhaahiriha inuu yiraahdo marka daahirkeedan ka leexinaya macnaheedu ma waxa weeye aniga waa iban hadana ashaacirada wuxuu ku eedeynay way ta'wiiliyeen oo macnaheedu daahirka habay ka leexiyeen buu ku eedeynay hada macnuhu ma waxa weeye anigana waa banaanta inaan leexiyo laakiin ashaacirada uma banaana waxba taa ku sii fagaamayo laana war macno weyn lama wuxuu aad ugu raftay luqada hadana waxaan iri adillada tustay daahirkan laga leexan karo waxa koow ka ah dalaalatu lugha dalaalatu sunna dalaalatu ijma bal ha soo bandhigno dalaalatu lugha midna soo qaadno ana luqo isku ma hayno wadaadka luqo isku ma hayno markaan kutubaha luqada aan u soo rogmana hal gaar waxaan isku haynaa ilaahay sifaadka oo isu sugay waxa ilaahay isu nisbeeyay bisan isku haysana adilla u keen adiladii aa keentay waa la naqdigii ka jawaab intaas aan isku haysana wuxuu luqada ugu meereysanayaana warkii hore aan u cadeeyay way waa tashwiish ma luqada waxaan isku haysana wadaad wuxuu kamid ah waxyaabaha uu daliishaday horena u daliishaday haddana ku celcelinayo ijmaaca haddaad dhagaysataan warkiisa inaan إثبات العينين إلهي إن الله صغه وحاسب الله إن الله كوشيجي إن يسن جماعة هين وركيسات كده جيسن كرتان مركو كسو جورين يو إمام الحرمين
كتاب كيس الشامل وأوليه إمام الحرمين وقد أثبت بعض أئمتنا بولي فيري أئمة نقار كود باسوغي بوليه وصور جزئية فيري بعض كل أئمتنا ما فيري أساقا صور نقلنا ودقيسن كرتا مقال كان بيكو جدا سيد إمام الحرمين رحمه الله تعالى وكمدا أئمة أشاعرة عويري وإمام أشعري ويه واليوم متأخرين أشاعرة أئمة كجرة وعويري وقد أثبت بعض أئمتنا عينين صفتين ثابتتين سمعا أئمة النقار بوحي سوغان لبا عين لبا إندود ويه أو صفاء أو أسوغان حوي سمعها كسوغان ثابتتين سمعا سمعها كسوغان سمعي وحي أولي جيدان أدلة النقلية القرآن في سنة إجماع رسول عويري وإن نوقش هذا القائل قفك لها عينين كسوغية هدي لغا مناقشه في صيغه الجمع قرانك صيغه جمع واستعمالها محا مثنى واستعمال شديد لهذا هنا عليه الانفصال ارنت انه كبحث رساله انت يبني اذ قد يعبر العرب عربت وحي كعبران بصيغه الجمع على تثنيه صيغه جمع باستعمالها ايوه تثنيه ورجيده وقد اثبت بعض ائمتنا بي وحي سو نقلي وحي سوغين ان الهي سبحانه وتعالى عينين او صفتين اوليه haddana wuxuu soo naqlinayaa in lala dooday bacdigiisa siiri in la niqaashay war waa lala dooday waana bacdi iyo waa ijmaac disa isku qabadsinaysa markii la niqaashayna waxay niqaashkii iyo doodii uga fakan karaan buu yiri oo ay uga fakadeen jamaca musanna waa loo isticmaalaa bay uga fakadeen warkaasi wuxuu ku cad yahay in niqaash ka jiro tajri bi a'yunina iyo ithbaatul aynayn إثبات العينين كما قلت شيء داعي النقاش كتير وسجودوده أو خلاف كتير وروك عادي وهو يدعي الإجماع أصلا إجماع وشاقنا أنا أولي بهدو إجماع عشيكتو أرانا يوروح اللغو إجماعية سوى نقليه إجماع أقول لا هذا لا يعيد عينين إجماع كسو نقلسي أولئية وحصو قاضي ور إمام اللكائي وعبد الله بن عباس كسو قوري وآيادا تجري بأعيننا مركو فسيري ويرى أشار ابن عباس لبديس إندود بو إشاري لبديس إندود بو إشاري ما ولي وحو قدريا بصوماليس وحو قدريا أسوغو دونيا إنو حقيقية ويريا إثبات العينين كبولي لبدا إندود إلهي أصغنا هذين أسوغو دونيا أئمة الإسلام وآياتها كان عينين كحجي السجار هذا أمك عابه وحقوه الرأي عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس وحكوري الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة سنة كيسو كوري ابن عباس إنه يري في تفسير قوله تعالى تجري بأعيننا سوف سرية ويدرير ويسعنا يساه دونتي أيضا وحوه عندها كوها إنه قال وحيري أشار بيده إنك راوي وحوليه أشار وحد المام ابن عباس بيده قعنتيسا إلى عينين لو أن بكوت المامي أسوأ الرباه إنه شيء وحوه أعينته إن عينين ولا جيده متحققين يا ويل ما يرد عبد الله بن عباس أسوقها مثل إمام اللكائي يري ساس دون يا عبد الله أي ماذا وركوا إن ساس اللي يرى هذا حقابي إن لقى حشود أوبان سوى دون يبولي فريا يا عدل على الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا إرادة عبد الله بن عباس إشارة هذا بيتشي دوي لأن سنة وليه لأن اللكائي كورين هي سحد سواد كمورمي إن سنة لسكدر يريو اللي بسند يبو هبل أجورينا دليل ما كون غنيس هذانا إن إرادة عبد الله بن عباس أو مدة أكتر هي لنتي هذانا واحد قلبي يسكوتشر إرادة إن أتكتر تنتين مانتي أو أتكتر تجد عبد الله بن عباس إرادة ذي سنة لقي يصور كسولة سوق دون يبوله إرادة ذي سنة تحقيق إنه سوق أو حقيقي إثبات العينين تاسنا حوي أرين آديات dhibaatadeeda u leh hadduu ka cajisay ithbaatu adillatihi inuu adilladiisii sugo hadduu ka cajisay walaalku xaqirta cajiskiisa hadduusa ka cajisinna maxallu nisaaca iyo meeshan isku haysano ha u soo laabto wadaadka luqa iskuma haysano waxba yuusu luqada ku rafan luqa iskuma haysano sheekhul baasaan yiri iskuma haysano sifaadka ilaahay uu isu sugay aan u sugno wixii uusa isu sugna aan ka dayno ma isku haysanaa إثبات العينين لبا إن ضاد بو إلهي إليه يبو دهيا دليل أكان بان إلي دليل كيبو كاني وان نقدي كيبو كيبو وريك لك جواب إلهي والحديث كان ضعيف كا أما ضعف فيه اعتراف أما الحديث الله كالي والإجماع آن إلي ماشان دليل أماءها موضوعا آن اسكوها إنه موضوعا إجماع دليل ولا كالي دليل مايا
mafhuumu mukhaalafadii oo intaad aragteen aan uga hadlay oo culimmadu ay leeyihiin war furuucdaaba la isku khilaafsan yahay see caqiidi loogu daliishadaa buu ka daba wareegaya wadaadkan marka maqaalkiisa intaa waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo qaybta koobaad insha allahu tacaala qaybta labaadna waxaan ka dhigi doonaa 4 nuqdo yar yara nuqdada koobaad imaamu ibnu khusayma oo u daliishaday kitaabkiisa leeyahay kitaabka tawxiid maxay culimmadu ka yiraahdeen nuqdada labaad imaamu daarimi kitaabkiisa an-naqd la yiraahdo oo ku radinayay bishr ibn qiyaad maxay culimmadu ka yiraahdeen nuqdada saddexaad insha allahu tacaala waxaan uga warrami doonaa xadiithu dajaal mafhuum mukhaalafadiisa oo weli uu ku dhagan yahay asagana a'immadu maxay ka yiraahdeen nuqdada afraad oo ugu dambaysa waxaan ka dhigi doonaa insha allahu tacaala imaamu bayhaqi ayaa inkiray buu yiri ibn al-jawzi warkiisa bal inay suurtoodo warkaas iyo inuu inkiray iyo in kale ayadana waa qaybta labaad oo wadaadkan maqaalkiisa ugu dambeeyay aan kaga jawaabayo insha allahu tacaala baan ka dhigaynaa waxaa dhici karta dadka qaar inay is yiraahdaan jawaabta badan iyo xagga kida iyo maxaa waxaas waxaan rabaa inaan idhaahdo qofku markuu aad aragtid inuu diinta waxa adiga aad aaminsantay inay xadgudub yihiin uu kaga hadlayo waa ku khasban tahay sida saxda inaad sheegtid waa ku khasban tahay xaqa in la cadeeyaa laga maarmaan wey aniga ujeedkaygu waxa weeye idhaarul xaq asaga inaan daatadiisa shaqsigiisa ku xadgudbo ma rabo a'immada islaamka inaan ninna anagu ku xadgudbo ma rabo waxa aan soo sheegayo dhan waa wax naqliyo culimada aan ka soo rarayo marka cid walba oo wax naqdinaysa oo diinta islaamka ka hadlaysana cidii saxana wanaageeda waa lagu amaanaya cidii wax khaladana khaladkeeda waa la cadeynaya asagoon qofka loo gafayn insha allahu tacaala hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh